السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا channel ku cusub tahay magacaygu waa Cismaan. Maanta waa bishuna waa sanadkuna waa 2020. Caafimaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha noloshaada ugu muhiimsan. Waxa markaa muhiim ah inaad ka shaqeyso, aad isku daydo wax kasta oo sare u qaadaya caafimaadkaaga. Waxaad samayn kartaa exercise, gym baad tagi kartaa, waad ordi kartaa. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago wax caafimaadkeena aad iyo aad ugu fiican oo gebigiisba qaata 5 daqiiqo in lagu sameeyo. Marka bal faa'iidadiisa ayaan ku horeynayaa. Haddaad tahay markaa qof busy ah oo iska mashquula oo exercise-ku aad ugu adag yahay, waxa muhiim ah inaad ku dadaashid wax kasta oo ku yar caawin kara aad samaysid. Waxa koobaad oo ugu fiican yahay waxa weeyaan difaaca jidhkaaga ayuu adkeenayaa. Waxa kale oo u fiican yahay sida dhiiggu u wareego jidhkaaga ayuu ka caawinaya. Wax kale oo ka caawinaya qof markuu yara depression dareemayo kale. Waxa kale oo ku fiican yahay skin-ka iyo timaha. Iyagana wuxuu ka dhigayaa healthy, energy-gaagana uu ku kordhinayaa, sare u qaadayaa energy-gaagana. Stress level-ka uu ka caawinaya oo hoos buu dhigayaa. Testosterone-kaagana sare u qaadayaa. Waxa kale oo fiican yahay qofku markuu dhaawac gaadho siiba dadka kubadda ciyaaro kale markuu dhaawac ama sports kalaba ciyaaro ama wax kalaba sameeyo hadduu dhaawac gaadho barar ku yareynaya. Waxa kale oo ka caawinaya breathing-ka inaad neef quwad la qaadato. Waxa kale oo ka caawinaya hurdada si aad u seexato hurdo fiican habeenkii. maalmaha hore samayntiisu way adag tahay oo runtii aad iyo aad bay u adag tahay. waxa dhici karta inaad ka noqoto aanad sameynaya dhici. Haddii aad laakiin samayso waxay ku xoojinaysaa inaad tahay qof isagu iska adag. kale oo iska fahanteen markaa benefityada aan sheegay awgeed. sida aan hore u sheegnayna wuxuu 5 daqiiqo kaliya u qaataa in la sameeyo 5 minutes kaliya. haddaad doonayso inaad hesho intaas oo benefits aan aragnay, intaas oo faa'iido aan soo sheegnay, haddaad doonayso inaad ka faa'iidaysato biyo qabow ku maydho oo waxaad ku bilaabi kartaa inta hore waad yara qaboojisan kartaa, dabadna hadhowna marka dad soo yara qabsatana waad iska jari kartaa.